Waxaan isticmaalnaa telefoonada casriga ah badideen ama gebi ahaanteenba. Marna ma isweydiisay inta ay la eg tahay xogta ka dhalatay isticmaalkeena. Ha noqoto emails, wicitaano, fariimo qoraaleedyo, sawirro, muuqaallo, codad iyo weliba waxyaabo aan internetka ka raadinay. Qiyaastii 40 exabyte oo xog ah ayuu soo saaraa halka qof ee telefoon isticmaala bishiiba. Ka waran tiradaasoo lagu dhuftay 5 bilyan oo ruux oo isticmaasha telefoonka casriga ah. Waa wax aad u badan runtii. Xogta intaa dhan way adag tahay in lagu kaydiyo nidaamka kombiyuutar kurshubista ee caadiga ah. Xogtaas aadka u badan waa waxa afka qalaad lagu yiraahdo big data, xogaha waaweyn ama culus. Aan eegno xogta internetku soo saaro gaar ahaan baraha bulshada halkii daqiiqo ee kasta. 1.2 milyan oo kilib ayaa la soo geliyaa Snapchat. 3.8 milyan oo jeer ayaa wax laga baaraa Google halkii daqiiqo. 1 milyan oo qof ayaa gasha Facebook halkii daqiiqo. 4.5 milyan oo muuqaal ayaa laga daawadaa YouTube halkii daqiiqo. Waxaana sidoo kale la isu diraa 188 milyan oo email halkii daqiiqo. WhatsApp iyo fariin qoraaleedyada gaagaaban iyagu waa tirobeel. Waa xog aad u badan soo maaha. Marka goorma ayaa xogta loo aqoonsadaa big data ama xogta weyn? Xog weyn waa xogta leh 5 astaamood ee soo socota: volume, velocity, variety, veracity iyo value. Aan sharaxno erayadan anagoo tusaale u soo qaadanayna xogta xarumaha caafimaadka. Isbitaalada iyo goobaha caafimaadka ee dunida daafaheeda ku yaala waxay soo saaraan volume ama xaddi culus oo xog ah. 2314 exabyte oo xog ah ayay celcelis ahaan soo saaraan sanad walba. Xogtaasoo isugu jirta foomamka bukaanada, jawaabaha baaritaanada iyo wixii la mida. Xogtaas oo dhan si xawaare sare leh ayaa loo soo saaraa, taasoo ka qayb ah dedejinta xogaha waaweyn, waxaana lagu magacaabaa velocity. Variety oo ah noocyada kala duwan ee xogta, iyadana waxaa laga wadaa 3 nooc ee xogta oo kala ah structured, semi-structured iyo unstructured data. Tusaale waa xogta Excel-ka ku qoran, log fileska iyo sawirrada X-rayda ama raajada. Veracity iyana waxaa laga wadaa sugnaanshaha xogta iyo saxnimadeeda. Xogtaasoo idil marka la analyze gareeyo waxay xarumaha caafimaadka ugu fadhidaa qiime, waxayna u isticmaali doonaan ogaanshaha cudurrada ku badan dadka, dawooyinka sida fiican u shaqeeya, kharashaadka laga baaqsan karo mustaqbalka dhow iyo wixii la mida. Taasna waxaa lagu magacaabaa value, waana qodobka 5aad ee astaamaha xogaha waaweyn. Haddaba sidee loo kaydiyaa loogana shaqaysiyaa xogta weyn? Hawshaa waxaa inoo qabta sistamyo u qaabaysan inay shaqada qabtaan, aadna u badan, balse kuwa ugu caansan ay ka mid yihiin Hadoop, Cassandra iyo Spark. Tusaale ahaan haddaan u qaadano Hadoop, waxa uu leeyahay nidaam xogeed lagu magacaabo Hadoop Distributed File System HDFS. Si aad xogaha waaweyn u kaydiso iyadoo la adeegsanayo nidaamka HDFS, faylkaaga waxaa loo qaybinayaa qaybo yaryar, waxayna ku kaydinayaan mashiin xogeedyo kala duwan. Intaas bes maaha, xataa waxay ka samaynayaan copy, oo haddii mid la waayo ama uu shaqayn waayo, waxaa yaalla copygiisa. Qaabkan waxaad xogtaadii u kaydinaysaa nidaamka qaybinta, taasoo ka dhigan mashiinadaas mid ka mid ah xataa haddii uu xumaado, xogtaadii waa nabad qabtaa, waxayna taallaa meelo kale. Hadoop sidoo kale waxay leedahay nidaamka map reduce technique oo loo isticmaalo inuu ka shaqaysiiyo xogta, taasoo micnaheedu tahay in markii aad xogta in la process gareeyo dalbato, shaqadaas halkii uu hal mashiin oo kaliya qaban lahaa, waxaa kuu qabanaya 3 mashiin oo kala duwan oo kuwii xogta kuu taalay ka mid ah. Waxay u shaqaynayaan nidaam garba siman ah, resultiga ama natiijada hal mar ayay ku soo gaarsiinayaan. Taas darteed ayay shaqadii u noqonaysaa mid fudud oo waqti yar ku baxay. Nidaamkaas sidoo kale waxaa loo yaqaanaa parallel processing. Marka aan kaydsano kadibna aan process gareyno xogteena, waan taxliilin karnaa, waxaana u isticmaali karnaa ujeedooyin badan. Tusaale ahaan, gameska Halo 3 iyo Call of Duty, designerska sameeyay waxay taxliiliyaan dadka isticmaala xogtooda si ay u fahmaan meesha ugu badan ee dadku ku istaajiyaan, dib uga daaraan ama ciyaarta uga baxaan. Xogtaas waxay ka caawinaysaa inay dib u nashqadeeyaan habka sheekada gameskaas, ayna horumariyaan qaababka loo isticmaali karo. Si la mid ah, xogaha culus waxaa loo isticmaali karaa maareynta musiibooyinka sida kuwa dabiiciga ah, si loo fahmo siyaabaha ay ku imaan karaan duufaanada, xilliyada roobabka
loona qaato taxadarka loo baahan yahay si looga badbaado khatartooda. Sidoo kale, shirkadaha bixiya adeegyada tiknoolajiyadda waa sababta ay u aruuriyaan cookies-ka qofka isticmaala website-kooda iyo adeegyadooda. Haddii aadan garanayn cookies, ka eeg linkigiisa qaybta description-ka ee muuqaalkan. Sanadka 2020, suuqa xogta weyne wuxuu ka badnaaday 76 bilyan oo la mid ah celcelis koror sanadle ah oo 10% ah, halka la filayo in falanqaynta ganacsiga iyo xogta weyn ay ka badato 210 bilyan boqolkiiba labada sano ee soo socota. Marka la gaaro 2025, dakhliga xogta weyne wuxuu kori doonaa ilaa 123.2 bilyan. Ka sokow adeegsiga, waxay sidoo kale kordhin doontaa xawaaraha wax soo saarka ee warshado badan. Gebagabadii, xogta weyn waa mid ka mid ah fikradaha tiknoolajiyadda ugu caansan suuqa maanta. Xogtu waxay leedahay awood ballaaran oo lagu bedelo adduunka ku xeeran aadanaha, iyadoo lasoo bandhigayo aragtiyo muhiim ah oo lagu hagaajinayo khibradda macaamiisha, qanacsanaanta, iyo bixinta adeegyo laga dheehday habdhaqanka iyo dabeecadaha aadanaha iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyadda. Haddii aad danaynayso inaad maal gashato xogaha waaweyn si aad u horumariso khibraddaada macaamiisha, saynisyahanada xogta waxay kaa caawin karaan inaad falanqayso xogtaada, taasoo kuu fududayn karta inaad hesho aragtiyo ku saabsan waxyaabaha muhiimka ah. Haddii aad wax uun ka faa'iiday xogtan, la wadaag dadka kale si ay uga faa'iidaystaan. Mahadsanid. Waxaan ahay Salaaxudiin Soomaali, halkanna waa Handab Academy.